barnaamijka Silqaan oo horey u ilaamiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo taas oo laga hirgeliyay qaybo badan oo kamid ah dalka si loogu soo celiyo bilicdii iyo dib u dhiskii uu lahaa dalkeena ayaa xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir ee degmada Shangaani waxaa maanta laga fuliyay barnaamijka Silqaan kaas oo ay ka qayb qaadanayaan dhalinyaro kala socotay degmooyinka Xamarjab Wadajir iyo sidoo kale degmada Yaaqshiid dhalinyaradaasi oo isugu jirtay gabdho iyo wiilo kuwaasi oo ka qayb qaadanayay dib u dhiska xaruntaasi lagu sameeynaya xaruntan dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa ah mid uu ugu talagalay maamulka gobolka Banaadir in dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku soo bandhigaan afkaartooda iyo sidoo kale hal abuurkooda ku aadan horumarinta dalka iyo sidoo kale dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed si dhalinyarada loogu sameeyo hal abuur dhab ah oo ay uga qayb qaataan horumarka dalka. dhalinyaradan uu hogaaminayay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan ayaa ka warbixiyay ujeedka dhalinyarada ee ku aadan horumarinta iyo dib u dhiska lagu sameeynaya xarunta dhalinyarada gobolka Banaadir taas oo qayb ka mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. xaruntan waa xarun ay leeyihiin dhalinyarada ku dhaqan caasimadda gobolka Banaadir kana faa'iideysan doonaan dhalinyarada ku dhaqan degmooyinka annagoo u diyaarinay qayb oo computer lab ah aan ugu talagalnay in dhalinyarada lagu baro computerka xirfadda computerka iyo qaybo kale oo kala duwan oo dhalinyarada aan rabno xirfadda gacanta in lagu baro runtii barnaamijkan Isxilqaan waa barnaamij oo madaxweynaheena noo ilaamiyay annagana waxa diyaar u nahay meel walba oo dan guud ah inaan ku dhisno uguna qayb qaadano dalkan shalay hadii dhalinyaradu dumisay maanta dhalinyaradu waxay diyaar u yihiin inay gacantooda ku dhisaan waan u mahadcelinayaa maanta runtii dhalinyaradan quruxda badan ay galbeeyga taagan qaar kamid ah dhalinyaradii ka qayb qaadanaysay barnaamijka Silqaan ee lagu dhisay xarunta dhalinyarada waxay tilmaameen inay ka go'an tahay dib u dhiska lagu sameeyo dalka gaar ahaan xarunta dhalinyarada Soomaaliyeed si dhalinyarada ay u helaan goob ay ku soo bandhigaan afgaartooda ku aadan horumarka dalka ka socda. waxaa maanta halkan iskugu imaanay jadwalka ka leheen Isxilqaan xarunta dhalinyarada ee degmada Shangaani anagoo isku garabsanay inaad ku dhisno xaruntan dhalinyarada si Isxilqaan ah 17 degmo maanta waxaa halkan ku joognaa 3 degmo oo kaltankeena maanta leenahay marka waxaa keenay 600 oo bulkeeti iyo 5 xabo oo kiish oo shamiido maanta waxaa halkan 600 bulkeeti iyo 5 xabo oo shamiido halkan aan ku keenay anagoo ah 3 degmo degmada Xamarjab iyo degmada Yaaqshiid iyo degmada Wadajir farkaligeeda fool ma dhaqdo. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.